Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Mar kale kusoo dhawaada cashir kale oo xiiso leh. Ardayda dhammaan channelka ku xiran iyo kuwa cusubba waxaa ka codsanaynaa cashirada in like-ta ay kula dadaalaan. Inta qof oo cashirka qanciyay isku day in cashirada qorto, wixii su-aal ahna aad soo weydiiso. Iska xaqiiji mise iska hubi, iska fiiri in channelkiga subscribe aa saartay. haddaan saarin subscribe-ka ku dadaal insha allah. waxaa kaloo ardayda ugu baraarujinayaa in qeybta online-ka mise oo ku baxa zoom-ka mise telegram-ka iyo qeybta iskuulka labadaba ay kusoo biiraan si luqadda sooxiliga ay iskaga dhisaan. cashirka maanta marka gudaha u galno, 3 eray ayaa meeshaan noo taalo. 3da eray si qaldan ayaa loo isticmaalaa. waa 3 ficil oo isku dhow. 3 ficil oo isku dhow. waxaa lagu dhahay tofauti, farqiga, yaa oo tazama, daawasho, angalia, fiiris, iyo ona, aragti. Tofauti ya tazama, angalia, naona. Tofauti ya tazama, daawasho, angalia, fiiri, na iyo ona, aragti. marka macnahaas marka loo kala macneeyo way fududahay, laakiin isticmaalidii bas marka jumlada la gelinayo oo ardayda isdib marinayaan marka khaladaadka la galo iyo saxda sida laga rabo labadaba aan isla fiirino. waxaa lagu dhahay zote kulligood. Ni waxaa waaye vitenzi ficilyo. Tunatumia waxaan isticmaalaynaa macho, indhaha, kuzitenda saan u samayna ficilada saan u falno maxaa samaynaynaa, maxaa isticmaalaynaa indho. 3daas ficilba wax gacanta lagu samaynayo ma ahan. intee lagu qabtaa indhaha, halaasa ka siman yihiin. waa isfahanaa umaleynaa. Mifano, tusaalooyin. Angalia watoto, angalia watoto, angalia, fiiri, watoto, caruurta. Jana, shalay, nilikuona, waan ku arkay miskugu arkay, kuwa waxaan kugu arkay soko, suuqa dhexdiisaan kugu arkay. Jana, shalay, nilikuona, waan ku arkay. la soco kuudaas iyo ku laabane qofka la hadlaysid. kuuda waxay ku laabane qofka aad la hadlaysid. Jana niliona haddaad dhahdo waan arkay lewa, laakiin nilikuona waan ku arkay. labadaas farqigeeda kala saar. Nafsi, ni, waqti, li, ku waa nafsi kale. yaa waay meesha uuda nafsiga la isticmaali jiray waawad u taagneed, hadda maxaa la isticmaalaa ku, ile waa mtendewa lagu sameeye. Nilikuona waan ku arkay, kuwa soko, suuq ayaan kugu arkay. Tunatazama waxaan daawanaynaa runinga TV. Tunatazama waxaan daawanaynaa runinga mise telefisheni ayaan daawanaynaa. waa hadda 3da jumlo, 3da ficil jumlooyin marka la geliya xoogaa way fudaad sooma. Angalia, fiiri, angalia, fiiri. Watoto, caruurta. Angalia, fiiri, watoto, caruurta. la soco waa markay tahay waa jamac, markay mufrad tahay waa mtoto. wa-da meeshu ay ka baxeen maxaa galayo ma, m kaligeeda galayso, waa mtoto. Jana, shalay, nili, ni aniga iska hadlay, li waa waqti mar lasoo dhaafay, kuwoona waan ku arkay, kuwa soko, suuq ayaan kugu arkay. Tunatazama waxaan daawanaynaa annaga, tuuda anaga u taagan, naadana waqti hadda la joogo waxay samaynayaana ku dhegan oo ah daawashadii. Tazama. Tunatazama waxaan daawanaynaa runinga TV. haya maxaa rabnaa marka hadda inaan samayno intaanan idin sheegin waxa hadda samay laheen, macnaha aan arkin jumlooyinka soo socdo
oo ku xigo waana jumlooyin challenging ah. su'aala meesha taalo. su-aasha taalo meesha waxaa waaye saddexdan ficil, laba ficil hal jumlo ma isla gelin kartaa? intaan qaybta kale u gudbin, bal isku day videoga inaad istaajiso oo laba jumlo, saddexdan ficil laba ka mid ah inaa hal jumlo ku wada isticmaasho. tusaale ahaan angalia iyo ona hal jumlo inaa ku dhex isticmaasho. isku day, markaa ka dhammaato kabacdi meesha ka wad ee arag jumlooyinkaas aan isku dhejinay oo labada ficil u qaadanay oo jumlo aa dhexgelinay. hal jumlo waa la socya, hal jumlo oo laba ficil la isticmaalayo. inaa la fahma umaleyna su-aasha. laba ficil aa qaadane, ama ona iyo angalia aa qaadane, laakiin laba jumlo ma dhexgelinaysid, hal sagaraa wada geline, hal jumla isla geline. hadda saas samaysay aan ka socono. aan macnayna marka aragno. hadda waxaa qortay iyo kuwaan isku barbardhig. laga yaabo naxwo ahaan hadalkaaga inuusan saas u toosneen, mise xooga waxaa isku keentay, laakiin fikradda inaa keentay in kale iska fiiri. xiriiriski iyo waxaas iyo inay ku dhibto laga yaabo, laakiin marka hore cashirka nafsiga waqti ficilka markaa qaadato jumladaada inay isgalaysay in kale muhiimadda ah. haya, jaribu isku day kutumia inaad isticmaasho vitenzi ficilyo viwili laba ah kwa sentensi moja hal jumla dhexdeed. hal sentence dhexdeed maxaa ku isticmaashaa vitenzi viwili, laba ficil. jaribu isku day kutumia inaad isticmaasho vitenzi viwili, laba ficil kwa sentensi moja hal jumla gudaheed inaad ku isticmaasho. mfano, tusaalo mise mifano, hadda waa dhigi kartaa tusaalooyin. nilikuangalia waan kaa fiiriyey kuwa dukaanka ayaan kaa fiiriyey, laakiin sikukuona kuma arkin. la soco, ku soo celin jumlada marka hore. nilikuangalia waan kaa fiiriyey kuwa dukaanka ayaan kaa fiiriyey, laakiin sikukuona kuma arkin. la soco, sikukuona waa diidmo. sidaas adiga meesha hadda nilidaas, ni'da ee sida u taagan tahay, kuwdaas waxay u taagan tahay li'da, waqti lasoo dhaafay oo diidmo ah. sikukuona kuma arkin. meesha marka maxaa isticmaalay? waxaa isticmaalay ficilka angalia iyo ficilka ona waxay ku kala duwan yihiin. bal arag ficilka angalia iyo ficilka ona marka hal jumlo wada geliyo jaa macnaha waa iskeenay. nilikuangalia waa kaa fiiriyey kuwa dukaanka kaa fiiriyey, laakiin sikukuangalia haddana ma dhihi karta, ma ku fiirinin. haddaa dhahdo nilikuangalia waan kaa fiiriyey kuwa dukaanka, laakiin sikukuangalia kuma fiirineen qone. haddana waxaa laga rabaa inaad dhahdo nilikuangalia kwa duka, laakiin sikukuona kuma arkin. haya, tumetazama waan daawanay runinga TV, baba abo akituangalia asagoo na fiirinayo. meeshaad maxaa qaadanay? tazama iyo angalia. waxaa dhahnay meeshaan waxaa yaalo ki. haddaad jumlada si fiican u fiiriso, erey laga yaabo ardayda qaar ku cusub yaha ku jiro. tumetazama waan daawanay runinga TV, baba abo akituangalia. asaga waa ki, asagoo tuangalia na fiirinayo. hadal socdo kidaas u taaganta asagoo saan yeelayo. kidaas maragoon u macnayn doonaa. tumetazama runinga waan daawanay TV, baba abo akituangalia asagoo na fiirinayo. nilitazama waan daawaday kakaangu walaalkay
akicheza asagoo ciyaarayo way soo laabatay tanaaba kasii fududba nilitazama waan daawaday kakangu walaalkay akicheza asagoo ciyaarayo mpira kubad laakiin hakuniona imuusan arkin nilitazama waan daawaday kakangu walaalkay akicheza asagoo ciyaarayo mpira kubad laakiin hakuniona ima arkin jumlada ugu horeysa maxaa qaadanay waxaa qaadanay angalia iyo ona tan labaad tazama iyo angalia tan saddexaad tazama iyo ona wawiyadaad jumlada ugu dambeyso hakuniona ha asaga ha diidmada ku asaga ni aniga ona imuusan arkin ha-da waa diidmo hakuniona imuusan arkin nilikuangalia waan kaa fiiriyay kwa dukad waan kaa fiiriyay laakiin sikukuona kuma arkin tumetazama waan daawanay runinga tv baba abo akituangalia asagoo na fiirinayo nilitazama waan daawaday kakangu walaalkay akicheza asagoo ciyaarayo mpira kubad laakiin hakuniona imuu arkin halas cashar kusoo gabgeynana insha allah ardayda waa soo xusinaa mar kale in qaybta online-ka mise qaybta iskuulka qofkii u baahan oo nagu soo biri karo numberka wuu yaalaa channelkiga fiidiyaasha kulli ku jira numberkeena naga soo wac haddii numberka arkin waa soo weydiin kartaa halas kusoo gabagabeynana wabilaahi tawfiiq